magacaygu waa Qalboos University diyaa channelka cusub tahay subscribe iyo like iyo share tuwan dhiirigelin mahadsanid maanta waxaan ka hadlaynaa raajida loo yaqaano silver bullet oo 23 iyo soo shaqeyso iyo goorma shaqeysa okay anu laba xilli baan trade galayaa oo 3 ilaa 4 New York 10 ilaa 11 New York 3 ilaa 4 New York waxay noo noqonaysaa 10 keena subaxnimo ilaa 11 keena subaxnimo okay tan ilaa 11 waxay noo noqonaysaa 5 teena galabnimo ilaa 6 maqribnimo noo noqonaysaa waxaad imanaysaa halkan time-ka ku qoran tahay time zone-ka imanaysaa waxaad ka dhiganaysaa waxaad raadinaysaa UTC -4 New York baa ka dhiganaysaa raajida waa silver bullet baa la yiraahdaa silver bullet oo qoro silver bullet way okay silver bullet daba goorma shaqeysaa waynu ogaanay goorta shaqeyso hadaba intaan la gaarin waxaad marka hore waxaa calaamsanaysaa 3 ilaa 4 New York xilliga ku beegantay labada time halkaas saac inta u dhaxaysa calaamsanaysaa 3 laga bilaabo ilaa 4 laga bilaabo calaamsanaysaa 10 laga bilaabo ilaa 11 calaamsanaysaa before 3 intaan la gaarin waa in sell side lagu riti ama buy side lagu riti lagu qaadaa amba igu low lagu qaadaa marka buy side maxaa tahay ama sell side maxaa tahay inuu mataan suuq wuxuu ku socdaa suuq sanbu ku socdaa wait suuq wuxuu ku socdaa sanbu ku socdaa inuu suuq xagaa soo maraya تلمبي مسوق حاجة سومرية أوكي أنت وين فاني أوكي مي باي سير كي قدام بي سيل سير كي قدام بي مي أوكي باي سير كي قدام بي واكن سيل سير كي قدام بي واكن وقت ينشوفنا هو 5 time 5 minute ويا أنا مع 5 minute نوقف قرو 5 minute 5 minute بين شوفنا أوكي أنت اللي قارن صدق لا طبعاً أنت اللي قارن waxaad iska soo kacaysaa sagaalkii konton ma iska soo kacaysaa sagaalkii konton ma chartigaad furaysaa waxaad calaamaysaa 5 minute baad geynaysaa waxaad calaamsanaysaa haygii ugu dambeeyay lowgii ugu dambeeyay calaamsanaysaa ma calaamsatay waa in lagu qaadaa markay 3 gaadhay 10 waa in lagu qaadaa maxaan ku ori waxaad 950 baad imanaysaa amba 550 waxaad calaamsanaysaa haygii lowgii ugu dambeeyay baad calaamsanaysaa waxayna noqonayaan okay buy side baa ka nagu qoro tan waa sell side tan way tan waa buy side sell side waa meel lagu rito ka xigo way okay waa inuu noo qaadaa marka la gaaro time kan matalan xagaa soo maraya waxa furmay London ma furmay 3 bay xiligi 3 ama 10 bay gaadhay okay waxa lagu qaaday sell side lagu ritigan baa lagu qaaday okay sell side ritigan waxa ka raadsanaysaa shift ba ka raadsanaysaa shift waa touch inuu fair value gaab ku noqdo dad fair value garanin iyo shift iyo waxaan ka hadlayo iyo buy side sell side u baratid Telegram-kayga linkiga saaran nagala soo hadal waxa jira mentorship bishan aan bilownay oo socda jira hadii aad doonayso aad xiisaynayso oo nagu soo biiri kartaa okay waxaan ku sameeyay waxaan ku wayn loo qaadaa ma loo qaaday in sell side lagu riti goobaan loo qaaday 3 markii gaadhay calaamadsanay 3 ka hor marka sell side calaamadsanay buy side calaamadsanay sell side ka loo qaaday halkan shift bii nooga sameeyay halkan shift bii nooga sameeyay calaamadda waa chocho ana jeclo waan iska soo dhigtaa taas aad u si weyn maaha isku reelin shift ma noo noqday fair value gap kuma nooga soo noqday fair value gap iyo waxaan wad fahmi doontaa fursada bayga xagaasan karaysanaa ilaa waxaan haysanaa 10 bib ilaa aad ugu yaraan 15 bib weeye laakiin waxaan haysanaa 10 bib haddaad trade geyso US bogus index iyo waxaan haddaad trade galeysanayo futures-kana waxaad SL-kaaga wuxuu noqonayaa TP-ga wuxuu noqonayaa 5 candles iyo 4 candles
five candlesiga maaha waa marka waxaan la xisaabinayo USP waxaan maaragtay lacagahan futureska marka la xisaabinayo waa 5 haddii kalena euro USD istiraatiijiyadan waxay ku shaqeysaa GBP USD euro USD bay ku shaqeysaa haddii aad euro USD aad trade gareyso waxaan ku dhihi lahaa waxaa ka raadisaa 10 bib ka raadi 10 bib ilaa 15 bib inta u dhaxaysa ka raadi markay 7 bib ku dhaqdo asalkaaga soo yaro durki maaha bartan wala keen wuxuu ahaa iminka matalan asalkaaga 5 bib buu ahaa 2 bib ka dhig saw yar yaree laakiin markiiba xagaan keenin brother oka isla time kana saan ku shaqeeyay aan kuli tojiye ka raadi eg marka matalan inyar baan ka iloobay marka salseerkan lagu qaado waxaad u daadegaysaa 1 minute baa u daadegaysaa time fin agaan kugu qoro marka lagu qaado sell side u daadeg 1 minute okay inaad la fahantaan jeclay 3 iyo 4 iyo 10 ilaa 11 maaha isku hal time 3 waxay noo noqonaysaa wani kuli bedel timekaagana 3 oo intan challenge-do ku dhaafin kartaa istiraatiijiyad kale oo kaga maarmi kartaa haddii aad doonayso faahfaahinna linkiga telegramka saaran naga soo qabo guud ahaanba waxaan bixinaa ICT waxyaaba ka kooban tahay ma bixinaa 3 ilaa 4 minute ku gaadho u bedelo 3 calaamayso ilaa 4 inta u dhaxaysa weyn lagu qaadaa sell side ama buy side idintaydana la fahantaan jeclay okay 5 minute okay waxaad geysaa okay 3 waan calaamaysanay kale ilaa 4 okay may sell side ku dambeeyay waa kan waa kan ba sell side kii ugu dambeeyay waa kan okay buy side kii ugu dambeeyay waa kan waa high low ugu dambeeyay suuqiisan ku soo socday maaragtay ba calaamaysanaysa high low ugu dambeeyay inaad tahay fantaan jacay okay waxay u daadegtaa 1 minute daadeg okay sell side lagu kabay noo qaaday buy side bay noo qaaday sell lagu dhintay noo qaaday of course waxay noo qaaday sell side lagu dhintay noo qaaday okay waxaan raadsanayna shift baan ka raadsanaysaa shiftigu wuxuu noqonayaa oo kan shiftigeeni waa kan fair value gap kimi waa kan suura long positionkii ka dhigo ganayla lowga dhigo okay 5 candles ma raadinaa 5 candles waa index waxaan waa trade hadaan soo dhigay telegram kuwi boom trade ga saas u qorxay okay another tusaale kale waxaan ku wari sell side 5 minute bad geysay waxa calaamasatay 3 ilaa 4 calaamasatay sell side lagu qaaday shift baa dhacay ilaa waxa haysanaysaa 10 bib 5 bib ilaa 15 bib baa haysanaysaa udana soo kala wareego marka meegnadiga okay su'aalo kale idan lacagta ma eegnaa okay tusaale kale waxaad soo furan kartaa shaxyaro kale aan ku sheegayaa sessions waxa la soo furan kartaa session diba soo furan kartaa wax la dhaho wuxuu ku calaamadinayaa 3 ilaa 4 ku bixinaysaa okay another tusaale kale okay okay kan buy waxa aaminsan buy side ka saa calaamadsanaysa buy side lagu tiga okay u daadego min sameeyay ma lagu qaaday buy side lagu tiga of course oo laga qaaday shifti fair value gap ka raaso aniga trade kan maalinta waxaan ka helay halkan buu shiftiga ka dhacay halkan ma yahay break
meelaha fair value gap kuma jirinba. Okay, ka shiftigan jeeda ma okay soo fur calaamadii short positionka aan kori ilaa xiraasanaysaa ilaa 10 bib ilaa 15 bib 15 bib 20 bib maalinta bixiyay isalkaaga intaas soo noqonaya nimayan waxaan waa easy takalna inuu soo diray waxa weeye waniyo hadaydan lahayn nation oo tiradada gelisaan oo hadeen wax ku sameysaan trading plan ku sameysaan oo idan xaleedaa oo idan de qaladkiina idan ku qoran nimayan waxaad u joogtaan waa qalad halkani psychology iyo backstiki iyo trade planki iyo buyski jeeda suuqa waday haddaan kula markii waxa dhacay iga bilaado guys haddaan kula march hal trade oo asal iga dhacay ma jirin bisha march halka trade iga dhacay oo minus 2r buu ahaa wax kalo tirado saliga dhacay ma jiro waxaan qaatay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iyo kaasoo iga dhacay 14 trade baan qaatay 12 trade baa wini noqday 2 trade baa saliga dhacay nimayaw IC2 wax shaqeynaya brother waa wax rule oo qoran haddii waxa ka weydo deebti waayo wato qaadanaysa sidoo backstinkii biaskii jeeda suuqan waday waxa soo dhigay 4 March waxaan yiri euro USD baan yiri waxaan yiri euro USD marka la qaado fair value gap waxa loo kaxaynayaa ji ah uptrend okay marka fair value aan ku geeyo brotherki halka ma maray waxaan ku fair value gap marka laga qaado in buy side ka laga qaado maxaa dhacay sideedii ma u dhacday of course miyaw dad suuqa jeedis dad ogtahay waa kan waxaan ku in fair value gap ka laga qaada marka laga qaado in buy side ka la soo qaada sidii baa dhacday brother waxaan dad ogtahay jeeda loo socdo brother waa kan fair value gap ka ma la yimaan ku way laga qaadaa buy side ka wala soo qaaday balaadad ogtahay jeeda soo koor ninkii la inta leelka ilaahaysti bal ninkii iska saarnaa koor abti waxaan iyo wax qoranay wax shaqeynay raasadaniyo okay DX waa iyadana sidoo kale iyadana DX waa sidoo kale 4 ma jeedana waxa yiri balagabti waxa yiri DX marka la qaado fair value gapkan waxaan ka rabaa jiyo ah dhowna wakan fair value gapka marka la qaado jiyo dhowna okay aan geeyadana DX kan meelahan bay marisi waxaan marka meelahan laga qaado waan buy sell ka laga qaada sidii bay u dhacday imkana sell ka ma laga qaaday imkana waxaan ku oran igluu videoga sii duubo waxaan ku sell ka marka laga qaado marka ka American ka sheekeynaya sell ka marka laga qaado shiftiyo dhaco fair value ga waxaan dhaco wayn advance value advance ka la soo qaadaa imakadan buy sell ka la soo qaadaa doonada suuqu jeedaan tigin laakiin eeg balninka oo ka waran maalmaha dhan bal buy ka raadinay ka waran USD buy maanta waan qasaanay buy maanta waan qasaanay buy maanta waan qasaanay buy nimayo waxaan wax nii shaqeynay raasada guys videoga inuu waxyaabo badan 5 March jeedana GBUSD maxaa dhahay waxaan dhahay balaagiyadana alaan ku dhaariyay bal waxaan marka la qaado fair value gap waxaan tumi doonaa buy GBUSD ilaa laga qaadayo buy side lagu dhig nimayo inaas ka hadlan garanas euro maxaa halkana alaan ku dhaariyay maxaa waxaan rabaa in OP la soo taabto den aan ka sel gareeyo fair value gap ka ma ka noqotay oo ka sel gareeyay example bal DX way soo dhacay euro USD soo dhacday brother lan ku dhaariyay waa kan
فيرفاليجا بك نقط وكاو بلي سوق لي ما سوق فيرفاليجا مكل طيب لك سل ما انت قصاني سل ما انت قصاني ممكن سل يا هو شقيني راسدن يا اذا لهين تريد بلان ان يوم انت بلاك تريد مستيقظ iga dhacay waan qoraa brada traded mistake iga dhacay waan qoraa qaladada gb card usd waxyaabaha lacagan dib uma trade gareyn doono aan gb usd ahayn cause gb card waxay u baahan tahay lacag horta inaad laba lacagood saddex lacagood baa kaa badan aniga beeriskayga waxay ku jira favorite-kayga waa intan euro usd iyo gb usd egaday euro usd gb usd waa isku jiho dxy iyo usd card iyo golinaydan waa isku jiho aud naydan sidoo kale kuwan future-kana backstream ku sameeyaa oo iyaga looma qaato sida metaphor-ka broker-kaaga ku xidhanaysaa metaphor-ka laga secretary garanaysaa midda kale waxaan ii sheegi rabay bishan guys wax bilaabmay mentorship-keena ku birinayay ilaa waxa ku eg tahay ilaa bisha 8 ku eg tahay ilaa bisha 8 ku eg tahay 3 days baa ka haran qiimayntiis baa jirta yaa jeceshay inaad ICT barato oo waxay ku shaqeyn waayeen new balance diibina tan lag qayb badan baa niiritinaya dhamaantiinba waxaan leeyahay dirajid kasta oo shaqeysa barada psychology ma istay xorantay waa technical maanta oo tiriyo qurux ma soo saari karaya iga qaabkood fikrayso bay aad u si muhiimsan man tarnagata guys